عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشركيني هنسي قد دونا سو دوادا غير تمل والبعد جوجتان سكستا إنه مقليسان components of the management of acute malnutrition ayaan ku guda jirnaa appetite test marka la sameeyo complication na laga fiirin some and mom validation la fiirin community mobilization la sameyn appetite test baanis iyo complication plus marka inuu la sameeyo appetite test loo sameeyo hadduu appetite test ku fiicnaado waa plus aan leeyahay complication ka markuu lagu arko complication lagu arkana waa plus ay noqon lahayd laakiin di complication laga waayo waa minus ay noqon marka appetite test plus complication no waa minus waaye unugas direct wuxuu noqonaa OTB uu noqonaa haddii appetite test loo sameeyo oo minus noqdo appetite test kii uu qaadan waayay complication markii laga fiiriyay plus uu noqday complication lagu arkay direct wuxuu noqonaa SC uu noqonaa community mobilization marka la joogo bulshada la wacyigelinayo oo la kala saarayo waaye marka inuu direct automatically hadduu ku jiro OTB program defaulter wuu kaga bixi karaa death wuu kaga bixi karaa ama referral la dhihi karaa SC loo diri karaa SC marka la joogana death wuu ka bixi karaa defaulter wuu ka bixi karaa amba stabilization loo sameeyo complication nidii laga soo baabiyo waxa loo soo OTB yaa loo soo diray TCV marka la joogana isna defaulter wuu ka bixi karaa death wuu ka bixi karaa ama deterioration uu noqday SC oo complication wato SC uu aadi ama wuxuu noqonaa deterioration uu noqonaa complication ki aan wadan wuxuu aadi OTB uu noqonaa marka OTB dana marka uu si fiicnaado recovery uu noqdo wuxuu aadi TCV uu aadi TCV marka joogtid recovery hadduu noqdo uu sii baxay waa normal program waaye shaxdan oo component of acute malnutrition program waa componentiga oo wax lagu daaweeyo oo lagu qiimeeyo waaye marka unugu uu yahay OTB uu yahay lagu qiimeeyo waaye marka BLW marka la sameynayo admission criteria uu leeyahay naftirkiisa anthropometric marka la fiirinayo degree of malnutrition ka la fiiriyo programka uu ku jirana waa la fiirin marka 21 cm hadduu yahay pregnancy maamadana ay tahay uur ay leedahay from ay pregnancy uu ka bilaabanayo marka 4 months uu ka bilaabanayo automatically moderate acute malnutrition uu noqon haddii 21 uu noqdo 4 bilna uurkeedu marayo marka automatically wuxuu noqonaa moderate acute malnutrition TCV programkii la gelin waa quudintii qaadan MUAC haddii uu noqdo 21 cm uu noqdo breastfeeding ay sameynayso maamada unug ay nuujinayso unugaas uu listen uu ka yaryahay 6 months uu ka yaryahay moderate acute malnutrition lagu qiimeyn TCV automatically direct ay u noqon 21 hadduu ka weyn yahay centimeterkeeda guud waaye home gurigeeda loo diri outpatient management OTB patient with a severe acute malnutrition ilmaha oo severe acute malnutrition oo jiro oo zaid ay u daran yihiin xanuunkooda iyo nafaqadooda waxa loo yaqaanaa loo yaqaanaa patient with a severe acute malnutrition haday daran yihiin xaaladooda ay daran tahay who have present with appetite with an appetite marka laga sameeyo appetite test loo sameeyo appetite test waa ku tijaabin cuntadii lagu tijaabinayo waaye no medication complication haddana aysan jirin wax oo calaamado oo halis sida shubankii qandhadii anemiyadii inaysan jirin and can be treated as outpatient marka calaamadahaas laga waayo appetite uu fiicnaado waxaa loo daaweeyaa unug oo outpatient oo bukaan socod ama loo daaweeyaa in community bulshada markuu ku dhex jiro marka unugan waa la fiirin severe acute malnutrition uu yahay waxaa laga fiirin appetite test laga fiirin uu fiican yahay medical complication laga fiirin uu fiican yahay treated waxaa loo daaweeyaa outpatient bukaan socod ama loo daaweeyaa bukaan socod laga dhigi community ahaan marka la joogo through the OTB service marka OTB service la qabanayo at the health facility level loo qabanayo and mobile clinic amba lagu qabto meel mobiling oo la tagay laga soo noqonayo amba community meel fixed oo xarun furan oo sida primary health care ama lagu qabtay oo saas loo daaweyn the patient attend bukaanada ka soo qayb gala the OTB wanis hal mar waxay imaanayaan bukaanada ka soo qayb gala OTB hal mar waxay imaanayaan a week bishii weegaga ku jiraan hal mar uu imaan haddana weeg labaad uu imaan haddana weeg saddexaad uu imaan haddana weeg afraad uu imaan bishii 4 week haday tahay afarta weeg
wanis wuu imaanaa mar walba hal weegan sabti haddii la siiyey sabtigiisuu imaan sabtigiis kale 4 weeg oo bisha ku jirta maalin walba mar uu imaan weeg walba maalintii uu lahaa uu imaan access to treatment aa loo sameyn evaluation aa loo sameyn receiving therapeutic food wuxuu qaadanaa cuntadii nafaqada aheed uu qaadan drug uu qaadan daawooyinkii uu qaadan until the next visit marka visitka kale uu imaado haddana waxaa la sameyn haddana sidii amal haddana markii maalintii distribution loo sameey isla maalinteed markuu imaado haddana sidii oo kale distribution loo sameyn caretakerka qofka oo ilaalinaya waxaa loo sheegi marka inay waxaan daawo ay yihiin unugan uu u baahan yahay aan ilmaha kala sheergareyn laga gadan laga cunin unugan keliya la siiyo dadka kale laga reebo follow up lagu sameyn indication wixii dara lagu arkay iyo wixii hadduu suu yahay iyo laga fiirin waxaa sameynaya staffka meesha joogaa sameyn marka si fiican loo manage gareyn the objective of outpatient management ujeedada laga leeyahay in bukaan socodka la daaweeyo severe acute malnutritionka ah is to increase in kor loo qaado waaye assisting treatment establishing approximately facility within the closer to more community bulshada inay kusoo xirmaan dadku u dhow inay adeegadan ay ka faa'iideystaan sare loo qaado nafaqadaradii lasii baabi'iyo ilmihii si fiican growth chartkooda iyo growth monitorkooda uu saxmo wax nafaqadaro ama safiir ama complication meesha laga waayo safiirkan laga xaliyo moderate la gaarsiiyo moderate-ka lasii dhaafiyo normal la gaarsiiya la rabaa marka deegaanka community-ga jooga inay ka faa'iideystaan waa muhiim the OTB is a curative service OTB curative service aimed wide at treatment some children waxaana lagu daaweeyaa ciyaalka samka severe acute malnutritionka lagu daaweeyaa OTB programka la yiraahdo waa curative service waaye aimedkiisna ujeedkiisa ugu weyn waa treat some with children yaa ilmaha oo samka qabaan oo nafaqadarada bacaan qabaan in laga daaweeyo waa prescribed iyadoo loo qoraayo ama la siinayo RUTF la siinayo depends on the weight iyadoo lagu tiirinayo ama loo fiirinayo kg uu yahay oo calculation ahaan loogu sameynayo marka kg-giisa waxa lagu siiyaa nafaqadii ilmihii qolo waxay qaadaan 14 qolo waxay qaadaan 10 qolo 21 marka kg-ga lagu qiimeyn malmaati sidaa lagu siin routine treatment la siin is a given to each child unug walba waxaa la siiyaa routine treatment daawooyin oo routine loogu talagalay and supplementary drugs iyo daawooyin oo vitaminada supplementary ay sii hoojiyaan prescribed according to the need identify waxaana lagu qiimeeyaa during treatment xilliga daaweynta lagu guda jiro unugaas wuxuu qabay iyo wuxuu ka cabinayay iyo calaamaduhu leeyahay lagu qiimeeyaa saasaa daawooyinka loo sameeyaa marka types of admission wuxuu noqon karaa marka the procedure admission habka loo maro explained in the triage emergency markaan joognay oo bilowgan kusoo sharaxnay oo habka loo maro marka la jiifinayo marka there are two laba nooc oo jira of admission OTB la sameynayo new admission la sameeyaa new admission micnaheedu waxa weeye from active and passive screening in la sameeyo active iyo passive screening self referral inuu yahay most admission to OTB will be on this new lagu qaban amba sort ahaan new lagu qaban relapse jira marka relapse waxaa loo yaqaana after more than 2 months markuu absence of after previous been discharged markii la fasaxay oo daawo la siiyey amba la cure gareeyay kadib markuu soo noqday 2 bil kadib soo noqday isoo haddana sidii amba tabtii nafaqadaradii hayso waxaa la yiraahdaa unugaas relapse la yiraahdaa this considered to be a new episode of malnutrition waxaa loo qiimeeyaa new episode of malnutrition lagu qiimeeyaa admission of the patient already under treatment some dadka horey loo sameeyay oo under treatment some loo sameeyay mar hore in la treat gareeyo haddana mar labaad ay soo laabtaan internal transfer from another OTB amba laga soo gudbiyay OTB kale treatment already started with some mar walba mar hore loo bilaabay some treatment amba internal transfer from SC iyadoo laga soo diray SC transfer with some and treatment given waxaa la siiyaa samkia la siiyaa amba return from SC amba SC uu ka imaaday back
to OTB awal OTB uu ahaa AC-ga loo diray, AC-ga ka imaaday, haddana OTB u imaaday, haddana chat with already registered mar hore systemka ku jiray, laakiin waxaa looga qiimeeyaa inuu soo noqday oo kaarkiisii nambarkiisii horay uu isticmaalay. Readmission waxaa loo yaqaanaa after defaulting within less than 2 months, markuu 2 bil in ka badan oo kaa maqnaa oo defaulter kaaga maqnaa or ama absence uu ka ahaa. Second with markaas waxaa lagu qiimeeyaa readmission Allah. Second to win even if not malnutrition. Second hadduu yahay unug labaad uu wata ama unug labaad uu jirana, hadduusan ahayn hataa nafaqa daro waxaa lagu qiimeeyaa kii nafaqa daradaheeda lagu qiimeeyaa. Second to win even not malnourished hadduu yahay hataa admission waa loo sameeyaa, isna waa way kala waaye. The staff shall have MUAC type. Staff waa inay haystaan MUAC waa lagu cabiro scale and length, scalekii oo miisaankii oo dhererka kg oo la raarinayo inay haystaan waaye. Length board wax lagu cabiro oo inay haystaan. Weight for higher table inay haystaan, haddana miisaankii oo dhererka inay haystaan. Registration book inay haystaan. OTB chartki inay degan yahay. Box for the OTB chart inuu leeyahay. Achievement stock cardski oo stock cardadii oo daawooyinkii wixii stock card wixii la bixiyay iyo meel laga la soconayo, intaana baxday, intan way yaashaa, intan way go'on tahay, intan way lose garowday, meel laga la soconayo inay jiraan. Look at table rough and kind message, meelo oo laisku gudbinayo fariimihii inay jiraan, table oo dadkii wax lagu fahansiinayo sidii loo qaato, sidii loo isticmaalo. Rough sugar in la helo, sokor iyo malmalatadii in la helo waaye. Drinking water si ilmaha loo siiyo. Medical measurement cups, kaababkii oo biyihii lagu cabaayay in la helo waaye, iyaga naftarkood laga maarmaan waayo oo ilmaha appetiteska loo sameynayo. Water soap hand wash meesha inay ka ag dhawaato waaye, meel oo saabuun laga heli karo, hand washna laga heli karo, biyo nadiifana laga heli karo oo hand washka lagu sameeyo. Thermometer calculator in lagu cabiri karo, thermometer in laga cabiri karo, calculator in la heli karo, pencil in la heli karo, pen in la heli karo, rubber in la heli karo, mastaradii, qalankii, qalan qorigii, calculatortii, intaa inay meesha available ka ahaadaan waaye markaa joogtid OTB programka. Marka hataa examination toolka loo baahan yahay in meesha laga stethoscope-ka kamida, amoxicillin-ka kamida, anti-malaria kamida, vitamin A kamida, anti-emetic kamida, measles vaccination-ka kamida. Amoxicillin waa antibiotic waaye, anti-malaria waa daawadii loo isticmaalayo malaria waaye, vitamin A waa daawadii essentialka ahayd oo vitaminada la siinayo waaye oo ilmaha fofisit la siinayo. Anti-emetic isna saas oo kale albendazole oo kala waaye oo isna fiseedada lagu siinaa. Measles isna talaalkii la siinayo jadeecadii waaye. Transfer formka wax lagu gudbiyo inay meesha available ka ahaadaan. Stock cards inay meesha yaalaan. Monthly report booklet book lagu qorayo reportka bish in laga heli karo xarunta oo meesha available ku ahaadaan. Casharkeena intaan ku koobaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.